waxay ahayd xilli habeen ah bishii Oktoobar 1992. Yoshi Hattori wuxuu garaacay albaab khaldan. Yoshi wuxuu ahaa 16 sano jir u dhashay dalka Japan, waxaana lagu dilay dalka Mareykanka. Wuxuu u sii socday xaflad ka dhacaysay Baton Rouge oo ka tirsan gobolka Louisiana. wuxuu la socday saaxiibkiis oo lagu magacaabo Webb, waxayna garan waayeen guriga ay u socdeen. Ma garanayno qaybtaas magaalada ka mid ka ah. waxaan u maleynayaa in aan maray jid qaldan. sidaas waxaa yar Webb oo dhawaan wareysi bixiyay. labada arday waxay xirteen dharka dadka lagu cabsiyo, iyagoo u haysta in meeshii saxda ahayd ay joogaan. balse waxay sameeyeen qalad aan ula kac ahayn, kaas oo galaftay noloshii Yoshi. baahin aad u ballaaran oo ay saxaafaddu samaysay ayaa markii dambe sababay olol lagu dalbanayay in isbeddel lagu sameeyo xeerka hubka ee dalka Mareykanka. 27 sano kadib waalidiinta Yoshi, qoyskii uu la noolaa ee Mareykanka, iyo qarankiisii Louisiana, waxay xasuusteen maalintii noloshooda ay wax badan iska beddeleen. Yoshi wuxuu aad u jeclaa ciyaarta rugby-ga, sida ay sheegay waalidiintiisa oo kale ah Masa iyo Mieko Hattori oo email lagu wareystay. markii hore ma uusan doonin in uu Mareykanka aado. wuxuu isbedelay markii Yoshi uu ku guuleystay imtixaanka adeega goobta ee Mareykanka ee la soo gaabiyo AFS, kaas oo ah isdhaafsiga ardayda caalamka oo dhan. si weyn ayuu ugu farxay sida ay waalidkiisu u tilmaameen.